wafti baladan hogaaminayo boqor burhaan boqor muuse kamid boqorka beeraha daarood ay weheliyaan ismada dhaqanka gobolka soo sanaag ee caynaya sidoo kale isma fara badan ayaa ka soo kicitimay dhanka iyo magaalada Qardho iyo sidoo kale gobolka Sool iyo isma kale oo ku weheliyaan boqorka waxaana halkan duleedka kaga hortagay boqolaal kamid ah shacabka degmada iyo sidoo kale uqaal iyo waxgarad waxaana halkaasi boqorku qof u gacan qaaday dadweynaha faraha badnaa ee bartaas ku soo dhaweynayay jaamac gar Ismaaciil oo waftiga halka lagu soo dhaweynayay qayb ka ahaa ayaa safarka soo dhaweyntiisa kelmad inaga dhigi doona gar soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم waxaan marka koowaad u mahadnaqaynaa shacabweynaha degmada Widh waftiga ballaaran ee isugu jira boqorka hogaaminayo boqor Burhaan boqor Muuse ee garaadada iyo boqorada iyo waasiyada oo ka soo kicitimay ilaa iyo xeeb Boosaaso ilaa iyo Garowe Laascaanood garaadadii gobolkuna ay waxa ku jiraan garaad Cabdisalaam boqor Cabdullaahi ugaas Maxamuud ugaas Cabdullaahi garaad Mukhtaar oo isna waxa waftiga dambe kamida waxa boqor ku soo dhaweynaa shacabka reer Widhna waa aragtaa sida ballaaran ee caawiyeen kuugu yihiin adiga waftigaaga insha Allah na Brito waxaan ku caawisho doonaa garaad Maxamed garaad Abshir oo waxa weeye garaadka aynu sagalnimi bari ilaa galbeed ummadda shacabka Soomaaliyeed baan ku shubi doonaa boqor soo dhawow shacabkii aad boqorka wayna waa aragtaa maanta iyo caawi sida ku soo dhaweynayaan wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين marka hore dhammaan shacabka magaalada Widh Widh rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel waxgarad dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa soo dhoweynta iyo qalbiga wanaagsan iyo ehelnimada aad nagu soo dhoweyseen waxaan leeyahay ilaahay weynaa ha idin barakeeyo khayr allah idin siiyo runtii halkan waxa maraya wafti aad iyo aad u ballaaran oo hormuud ka yihiin garaadadii iyo muxaysimadii deegaanka waxgaradkii culimaauddiin khiyaar dhammaantood runtii anoo afkooda ku hadlaya waxaan idinka mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhoweynta iyo qalbiga wanaagsan iyo iyadoo wakhti habeennimo ah oo muxuu ahay inaad xilligan aad halkan ku soo gaadhaan waxaan leeyahay jasaakumullahu khayra jasaa allah idin barakeeyo wixii intaa ka badan berriin baynu sooran doonaa insha allah iyo xafladda caleemasaarka aad iyo aad baad mahadsantihiin hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullah bismillahi raxmaani raxiim sidaa boqorku sheegay iyo garaadkuba waxaan u mahad celinaynaa reer Widh Widh soo dhoweynta quruxda badan iyo wakhtiga faraha badan ay noo taagnaayeen waddada waxaanu leenahay allah idin barakeeyo aad iyo aadna waa u mahadsantihiin wixii kalena waa inoo berrinta asalaamu calaykum waraxmatullahi
gederiyo tamkiyo xirxidho gehel ku dhalay geed harweeyahayn intaad gogoldhigatidbaad macalkiyo xigdada tala ugu gorfayn gederiyo tamkiyo xirxidho gehel ku dhalay geed harweeyahayn intaad gogoldhigatidbaad macalkiyo xigdada tala ugu gorfayn waxaan u soconnaa waxaa weeye inaanu garaadkeega ku caanushubno garaad maxamed kala abshir insha allah berito aad iyo aad heewooda ku mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee kakacadka ah ee tolniimada ah ee walaaltinimada ah ee sharafta ah ee gobolka cayn oo dhan aad u soo dhowaysay waftigan ballaaran iyo waftigii ka soo horreeyey ee ka yimi ilaa iyo hargeysa gabiley iyo goorme ilaa burxo ilaa hawgeed u soo dhowayseenna aad iyo aad baa idinka mahad celinaya waxaan kaloo idiin sheegayaa in wafti ballaaran oo etoobiya ka soo socda oo hogaaminayo garaad kulmiyana insha allah saacadaha soo socda inugu soo koynaya waxaa kaloo soo socda oo caawa laascaanood ooyday islaan ciise islaan maxamed iyo garaad mukhtaar iyo wafti ballaaran iyo beeldaadsiga cali saleebaan iyo kii cali jibraahim iyo bari oo dhan oo boqorkuna uu mas-uul ka yahay oo ka soo horreeyey iyaguna insha allah aroortii bay noo imaanayaan aad baynu soo dhowayn doonaa jaamac garaad cali wafti ballaaran oo soo socdana waa imaan doonaan dhammaan mudug oo dhan baa soo socota oo iyaguna mar dhow soo gelaya oo gobolka mudug oo islaam bashiir iyo waxaa weeye raggii waaweynaa iyo salaakiinta ahay waxaa weye looma kala harin baan ugu oranayaa reer wilow hadalku berri bii noo noqon doonaa si fiican baynu garaadkiina ugu caalushumaynaa haddana boqorkaan ku soo dhowaynayaa boqor cabdullaah baanu idinka mahad celinaynaa waxaa halkan na soo mariyey waxaa weeyaan garaad maxamed dumar culimo iyo caaqil iyo waxgarad iyo dhallinyaro waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan reer wirwid dadka qaar baa waxay moodi jireen wirwid inay magaalo yaroo tuulaa tahay rag baanu caawa wax tusnay markaanu dadkan faraha badan arkeen iyo guryahan iyo waxa kan rag baan wax tusnaa waa laascaanoodii labaad baanu nidhi laascaanoodii labaad miyay ka dhacdaa maasha allah waa magaalo qurux badan iyo dad qurux badan iyo soo dhoweyn iyo kalgacaltooyo aad iyo aad baanu idin salaamaynaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad boqorka iyo ismadii la socday ee meelaha fog ka yimid annagu meel dhow baanu ka nimid degaankii baanu degaankaanu nahay ragga meel fog ka yimid goosaase ka yimid qarda ka yimid iyo meelaha kaleo fogfog ilaa gaalkacayo iyo burco iyo meel walba waa laga soo socdaa dadka martida idiin imaanaya sida quruxda badan aad u soo dhowayseen oo aad u martigelinaysaan waa inoo wada tahay waa ku faraxsannahay allah idin barakeeyaanu leenahay sidaa ugaasku sheegayna dadku hadday saa u farabataan iyo gaadiidka nabadgelyada iyo nidaamkana ha la ilaaliyo ha la adkeeyo cabdisalaam u sheegay iyo garaad jaamaci maanta waxaan aragnaa magaalo weyn oo qiimo leh oo population tiro badan ku noolyahay leanna wixii war indhaha dhaama ayaa soomaalidu tiraahdaa indhaha iyagaan ku aragnaa sida qiimaha badan oo sharafta badan oo firfircoonida iyo kalsoonidu ka muuqato aad noogu soo dhowayseen waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo insha allahu waqti dambe ilaa iyo maanta soo dhoweyn taagnaydeen haddana wuxuu kale inay timaado baan rajaynaynaa muxuu ahay waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa wixii aan suran lahayn berri iyo xafladda caliimisaarka ayaanu suran doonayna horumar iyo khayr wadooyin iyo muxuu ahay khayr baan mahay uga maraynayo horumar calaa nabiyina maxamed wacala